قال يو معاي قلبي قد كنت على إبتاع قال يو معاي قلبي قد كنت على إبتاع تمالك ويب أني وان كايل أورتال ديل حتى لان كيل خمس مكدير haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo dileed qisadan waxay ku dhacday wiil dhalinyaro ah. wiilka waxa uu rabay inuu aado magaalo u dhow magaaladiisa, wuxuuna rabay inuu tareen raaco. hadda tareenka ayaa imaaday, waa inaan gudaha u galaa, balse laakiin waxaan la yaabanahay tareenka gudihiisa maxaa sidaan firaaqo uga dhigay. weligay maan arkin tareen dhexdiisu sidaan faaruq ay u tahay, mana garanayo dadka maanta meeshay kala aadeen. xogaa waxaan dareemayaa cabsi, sababtoo ah tareenka gudihiisa dhan waa cidlo keligayga ayaa ku jiro, mana aqaan sababta ka dambeysa arrintaas. hamarskiis waxaan arkay leer isdidiminaya, kadibna waxaan ba arkayba qof meesha fadhiistayba, mana aqaan qofka siduu meesha ku fadhiistay. leerka ayaa bigbigleynayaba, waan yaabanahay, ma aqaan maanta meeshaan waxa ka soo socdo iyo waxa dhici doono. cabsi ayaan dareemayaa, balse laakiin halka wuu bigbiglaynayaa. waan yaabanahay, maxaa ka qaldan tareen gudihiisa. qofki waan waayey, haddana meel kale ayuu soo fadhiistay. meeshuu soo fadhiista nalkana wuu dadamayaa. qofkan waa qof dhulka fiirinaya oo keliya. markaan arrinta waxay noqotay mid aad u cabsi badan. qofka ayaan fiirinaya, haddana wuu ugu soo dhawaaday. meel walba u soo dhawaadana leerka wuu isdadaminayaa. ma aqaan arrintan maanta wax ka qaldan tareenka dhexdiisa. qofka waan waayey sikadiisa, kadibna cabsidii ay u sii saayiday. waxaan isku mashquuliyey taleefankayga. sidaan taleefankayga u fiirinaya waxaan dareemay inuu qof agtiida soo fadhiisanayo oo kale, mana aqaan qofka wuxuu yahay. markaan fiiriyay waxaan arkayba lagu horra. قلبي قد كنت على إبتاع قال يو معاي قلبي قد كنت على إبتاع تمالك ويب أني وان كايل أورتال ديل حتى لان كيل خمس مكدير haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo dileed